hogaamada taliyaha qaybta booliiska gobolka Awdal afayeenka ciidanka booliiska oo taliyaha qaybta nabadgelyada wadooyinka baada saxaafadda iyo ciidanka kale halka ku sugan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam waxaan salaamayaa saraakiisha ciidanka booliiska ee sare saraakiisha dhexe saraakiisha hoose iyo dhammaan ciidan weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland ma hadda koobaad ilaahay baa leh waxaan kala waan halkan ammaan iyo bogaadin uga soo jeedinayaa ciidanka booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan saraakiishii iyo saraakiil xigeenkii iyo alfleydii iyo dableydii ka hawlgalay ee naftood horayaasha ahaa dhacdadii shalay bisha 17 lagu weeraray goob diiwaangelineed oo ku taala Hadeyta ciidankii ka hawlgalay anigoo ilaahay u mahad celinaya markii falkaas aanu maqlay ciidanka booliisku wuxuu galay eegan buuxa full alert ayuu galay waxaanu galay howlgal ballaaran oo meel kasta oo loo tuumayo inay burcadii falka fulisaa gasho lagu soo qabanayay waxaan sida wanaagsan ee ay uga howlgaleen falka foosha xumaa ciidanka booliisku waa naftood horayaal habeen iyo maalin minid kasta saacad kasta u darban inay ilaaliyaan nabadgelyada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo bulshada reer Soomaaliland waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland halkan ama ugu soo jeediyay shacabka reer Soomaaliland sida wanaagsan ay hadiyo jeer ciidanka booliiska ula hawlgalaan ee ay ula shaqeeyaan anoo ciidanka booliiska ku boorinaya inay shacabkooda u dhagmugulaadaan ilaashadaan aad iyo aad ugu mahad celinaya ciidanka booliiska waxaa kaloo bulshada Soomaaliland aanu sheegayaa in qalabkii rabshadaha oo bariyahan bayado ciidanka tabaruga socday oo laga bilaabo caasimadda in qalabkii rabshadaha hawlgalkii ugu horeeyay ay shalay ku galeen taasoo suurto gelisay anoo ilaahay ugu mahad celinaya qasaara yarayso qalabkaas oo qalabka koortaga rabshadaha oo ciidanka booliisku ku hawlgaleen shalay markii ugu horeysay iyagoo horeba dhowr jeer hore ugu hawlgalay waxaan u sheegayaa in ciidanka booliisku iyadoo oo warbixin faahfaahsan soo doono afayeenka ciidanka booliisku in cid kasta oo isku dayda amaba fulisa fal khatar ku ah nabadgelyada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaaliland inay ciidanka booliisku ka qaadi doonaan tallaabo adag oo sharciga waafaqsan sharcigana la horgeyn doono waxaan intaa kaga baxayaa anoo wixii faahfaahin u diinaya afayeenka ciidanka booliiska waxaan halkan u bayaaminayaa in falkaasi shalayto oo ahaa fal cad oo qalabkan iyo waxaan hortiina yaalan oo idin faahfaahin doono afayeenka ciidanka booliisku waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh